امتحانات تاجن أنتم مركل لبا أرمضان لا اسكو هستا horta dadku saddex ay u qaybsamaan qolale labada daraf ka soo kamida waa taqaaniin qolada kale wuxuu yaraa waa taqaaniin ma baahna inaan ku celceliyo ahay murtadiinta nag laga dhigo ragaa qabay gaarta geesiyaasha oo dhalinyarada murtadiintan waa in meel laga soo hero madaxweynahooda iyo golahooda baarlamaan iyo ciidamadooda iyo shaqaalahooda iyo haweenka dhulka xaaqa iyo kuwa ku dhex nool iyo waxa canshuurta siiya iyo suuqa bakaar iska wada adigu wixii madaxaas ku jiro dhan waa in meel la saaraa xisaab weyn waay xisaab weyn u taala asugaysa dhinaca kale waxa yaala iyagana nimankii dhalinyarada ahay waa argagixiso waa khawaarid waa hal soo kaxeysay yahuudiin la saaro iyo wixii la heli karo gaal iyo muslim hal madow hal cad waa in baa la saaro ilaahan idinku dhaariyay meeshaas xaq soo baxay marka dadki kale muslimka ahay diinta wax ka yaqeeno ahlu iimaan ay waxay leeyihiin la ilaaha illa allah biyo ku shub waa yaabayeen maxaa yeelay muslimiina gaalad dirayay ma joogaan dad isku dimaabaya kaliya jooga marka mabda'aas marka mu'aakhaadka been muhaajiriin wal ansaar muxuu dhalay annaga Soomaaliya daan muxuu naga maqan yahay meeshay xaajadan iska qabalaadahay wadankeena waa aragteen tu wadii laaya wala dijilaya maxaa dadkuna muslimiin masaajidka ku wacdirinayaan asaada meel ka gashay arkin koobana diir raba laga qaadanay idan wala isku dhaxwada hawsha xagga baa ka socotaa marka maxay u degi laadahay waxay u degi laadahay mabaadiidaas iyo khayrkaas nuuraaniga oo ilaahay cirka ka soo dejiyay ayaan ba nagu soconba ninka raba ninka inuu dilo haduu u yimaado assalaamu alaykum oo leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay salaanta la isku badbaadiyo salaantii abla iska bilaabay idan la isku bilaabaaba salaanta alaykum assalaam qalbiga ku qoyahay waxa salaantuna waa mid wax ka dambeeyaan alaab kala ka dambaysa walaal yaalo inaan manhajka nabiga sallallahu alayhi wasallam aan qaadano dawladdan dhisanayna asal aan ku dul dhisno wuxuu ku dhisan ku dhisno oo ah dadka in la walaaleeyo fawaariqda qabaliga meel la iska dhigo الاعتزاز والتفاخر بالقبائل ما لا اسكدغو خير بل انه ودانا اساسنا ما لا حكم ترميسو waxay soo kordhinayaan damaar iyo fasaad aan ma jiro qabiil kan aakhir lagu weydiima oo adduun lagu hatta reerka adigu aad ka dhalatay ilma jaamac xasan lagu weydiinay iyo ilma maartay jaamac waxa lagu weydiima gabayna marka Soomaaliya Muqdisho anigu ayaan waa soo mogaayo 13 bishaana ay ugu dambeysay bisha hadda dhamaadka oo 12 milyan soo moga ama 12 milyan laakiin wixii ka jiraan si kooban idinku sheega mawduucan muhaadarada si aan ugu xiro waxa ka jiray dad laba kooxood ah oo habeen iyo maalin ku hurda si isu dilaayeen kaliya oo Soomaali ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo masaajidka hadii masaajid ku Allah iyagu isnimad gelinayo ku dukalahay oo laba wiilo laba dad isku xigtaa midna xalka soo jeedin halkan ka soo jeedo dhinaca kale waxa yaala iyagana nimankii dhalinyarada ahay waa argagixiso waa khawaarid waa hal soo kaxeysay yahuudiin la saaro iyo wixii la heli karo gaal iyo muslim hal madow hal cad waa in baa la saaro ilaahan idinku dhaariyay meeshaas xaq soo baxay marka dadki kale muslimka ahay diinta wax ka yaqeeno ahlu iimaan ay waxay leeyihiin la ilaaha illa allah biyo ku shub waa yaabayeen maxaa yeelay muslimiina gaalad dirayay ma joogaan dad isku dimaabaya kaliya jooga waxaan leenahay marka haddii sawaadka nacdamka oo muslimiinta iyo suuqyadan iyo dawladdan iska macmalka ah oo adduunyada aqoonsan loo been aqoonsi ma jiro run laakiin uu la kugu been sheegayo iyo igaartan geesiyaasha oo diinta iyo qeyrada islaamiga meesha ay geysay bilmunaasaba anu dhalinyarada waxaan qabaa inaan la cadaawaysan inaan aad loo dagaalamin inaan duqda la dhawsiinine la soo dumo oo akhdaa waa leeyihiin waaweyn akhdaadooda si diin ahaan looga dhaadhiciyo taas asal ah islaamka taas asal arkaan ku daynano kow ka siinayo mid saawir u xiranta ee inuu ku qarjajiyo waliba adigoo maartay tawxiidka xataa aan dhageysanayn asagana ma day kartaa lama day karo asaguna dareen cusub waay marka daawadu marka maxay tahay daawadu waxa waaye asal ahaan in loo laabto ilaahay kitaabkiisa inay culimada labada dhinac joogaa ilaahay intay ka baqaan horta waxa wax dilaa dadka qaar kood suuqa waxay galiyeen shabaaba dadka eber ka dhigay ayaan been leedin sheegay Soomaaliyo dhama isla shabaabka waxa wax dilaa ugu yaryahay asagu hal dhifo qabac ka siinaya laakiin dadka qabiila lagu laayo haya oo maamul goboleedka beenha lagu laayo haya oo yahuudiyan nasaara jawaasiistooda laayo haya oo walaxan la aqaanin laayo haya boqol wal xaata dadka laayo haya oo la aqaanin yaa waxba shabaab ah laayo kala leedin shabaabkuna iyaguna shimaayeen oo dhacday ka wadaan laakiin namarka ugu yaraa leeyahay kala iyaga oo maartay qolo walba waxay isaga fiican yihiin laakiin hadda shabaabku kaleeto shabaabku meelaha ay joogaan anigu ma tagin oo waa anigu lafteeda waxa ugu cabsay ugu jirtay tigi ma karo laakiin waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxa kamid ah runta la idin sheegaa waxay badan ku fiican yihiin dadka tale inaga warramaan waana sheegaynaa laana cadaaladda ku jirta insaafka ku jira waxay ku fiican yihiin meesha ay joogaan horto laandheer iyo laangaab iyo qabiil badan iyo qabiil kama jiro dadka dhan wax mabaadi'ay aaminsan hoos saxnaata soo qaldanaatay dacwad ay leeyihiin laakiin afar ka dardarano salbi leeyihiin iyaguna la budda in la sheego cadaaladda
وحاكم الأفر تسلبي من الله نمكن دين الدولة أما دين عاصمة ما القبلية ده أما واحد قلت ما أصل أهم مرتد واحد نهائيا حتى كنت لقى في رماي وما أنا كنت لقى في رماي بر الحل والحلال أنا قلت مشروع ورك الجدلة أركتها الجدلة قلت وجانا يا ديجا مركب مسلمين تلقوا فضانا يسكبنا يستفيدوا أو حتى مرجعين إسلامية شهادة موانع الكفر كل أن يعلنين وأنا صاحب رجلين وأنا الحل والعقد أهل العلم أن يعلنين وفضيت التسرع بقتل المسلمين وتكفيرهم واستباحة دمهم أريدها وحكمها حكمتي الدولة الإسلامية اللي هي الدولة الإسلامية وحين لقى الصمر والنبي الصمر وجدت كده راي هاي إنه هرت المسلمين تم داستكو لابو إنه عدو جيس السيكة لهرهر مريه أسو A B C أنت كده سيوكل الدرجة هذا أنا ولا دجالمه إنه قار ليش يسوق قار كانوا تخلصوا إنه وقت السيو إنه الدعوة هرت الروح كده نكف ديو سي جنود الإسلام كوكوس بحان إنه حتى قالب قرابين سيهاد أسو حماية كدكتو سدح أدير أو قالوا ده أفرتوا دول مركور قال هاي هلا أبو حماي أبو لهب لكن أبو طالب إيه حمزة إيه عباس سدح قال هاي مركور حمزة سواء إسلامك أنت اللي جوج عباسنا وأبو سيدم بي أبو طالب نواب كنت قال أبو لهب نفسه إيه يدلوا بعي بسوق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله خير الجزاء محاضرة آدو قيم بدن وقيم وبكل أدلتها وتفاصيلها وجوانبها حمبار سنبو رمتي الناس الجودية إلهي كأجر سيد تعليق وحير وآدو كوبنا إن شاء الله وكذا مرينا تعليقنا وحوي مجرد إيضاحات تنبيهات واحد لغة علقة مجران وحوي أدلة على عد أقوال العلماء النقول ثابتة أو بسوق بخير الله يا شيخ وحكى لي تعليق ونغنيا وأين نحن من هذه المعاني الإسلامية العظيمة التي ذكرها الشيخ يعني حقين كجوجنا معاني أن لقيستني وحيابها النصوص تأيدها أحاديث أي أقواش علماء أنا وحقين ما أنت كجوجنا وحنجعلها إن أن دور الرموت تعتبته أنت أنا أوجد من لكن تعليق وحن ربارت إن نفوهم بليه وإلهي أن نحمد قبل كل شيء ثم نهنئكم بعد ذلك عليكم نهنئكم على هذا المشروع الصرح العلمي المبارك الدعوي الذي أنتم فيه الآن يعني ماشي قيمة بدل ما أنت فردين بيت كان إلهي قريهيسا كمدها بركيسا وعبادة إلهي ذكر إلهي أتاغا أتكتعاونتين هنا كتاب جلسين مركه إلهي نقول حمدنا هنا إذن كان نكون مهدنا أما إذن كوه هم بلينا هنا ما هذا ولن إلهي بائس كله ثم بعد ذلك واحد إذن كان مدنتي الذين جزاكم الله خيرا والذين دعيوا أنا رمتي صاحبك دكتور يوسف أيا شيخ يوسف أيا هذا كهر وبس أنا كهر حل كانوا كلمنا هل كان مد أيا سجوا مشروع عن حلم وأن ولي حقيقة نغن لكن يد اللي هايو أيان غير بريتوريا سوزي أرني أنا جيش محمد شبلي مال سلون نمت كدمنا أنا وهبينا هذا هل كان جوجي كد دكتور يوسف حافظ يسكو هيدي ما عندنا أيان برنامج كأنك لو كسر فعاليات كي جوانس بيجان كل لابتي شيخ أدبن وش كيسنة هل كانوا قلب إسمرسي حرمت عنه إتصي وإن قال اللي هي طبعا وقري سجايا القديمة ومارت اسكرفها لكن موقع هذا موقعات استراتيجية وحان يدك هو إنه يريد أن مركز الإسلامي هل كان كذبنا مسجد ركز الذي سوى الشيخ رنت صاحبي سهاي طلاب العلم رقم هذا هل كان يجمع موضان خيارتي جوكتينا رنتي ويسكو ذا أركتبك أهاين رنتاس جود جاس وسلحم بارسنايا قضاء الناس سمايان هدنا 10 لو سمايي وولو عشد علماء جعلاد هو ذبيحة ألعاب اسكو ركبنا marka waxaan dhahnay niyadiina iyo midaan dabiixada aan aragnay waxaan u maleynaa hawshaan inay maqbuulo tahay tii baab suufiyada ma ahan waa tii xagga rajada ilaahay xaqiisa ayad waay marka kaftana ahaaday sheekha laakiin maanta taxaqaq al-hulm wa asbaha waaqi'an wuxuu noqday xulmiga waagaas wax waaqic ah oo dhisan hortaas weedin ku hamaleynayna intii u saciisay oo markazul bayaan ama majlisul bayaan iyo culimadiisa iyo mashaayikhdiisa iyo dhalinyaradiisa iyo ruwaadiisa iyo taageerayaashiisa ilaa ajir ka siiyo ayaga ay ajir goranay ilaa yawm al-qiyaamah يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي اللي قلت يا خير كان شلمات كجرا أكون هذا يحوق هذا ماله الله دردرا يوحصل كان كخير بدن كان كباقسا كان الله هو إنه قبل كل جلاء قيام كل تجاي إلى يوم القيامة كل سبحانه لكن وحصل ولا تجاي قبلها ولا جورسنا يا دول كركلا كراح يسنا يا الماء وقت تكتب حتى مبتدئين إلى يقول دوانا يان وأون كل نصيب سواء لكن كانوا كل نصيب سنة واحد له بوا وهو حكوا تعب له بوا أنت كبعد تعليق الموضوع مركان أصلا نقضه إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى أيامكم هذينا ونسي نعمة الإيمان والإسلام
كدر مايو مقوماتك أمام أرمها الشيخ ونرشة وحيد مقومات الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية وحيابها الحجية الأخوة الإسلامية هي حقوق ذا هي آداب تيذا ينشر حي وما ذكرنا هنا وحولنا قصة ختمي واحد بدن بأن نجاها ليسن وأنه أنسقوا سببنا وهذا حق مركب وحارب علينا عكلا إن جانب كلا لا هذا انطلاقا من حديث حذيفة رضي الله عنه معوقات هذه الأخوة محاهر تاجن هذه مقومات كذا نوع عسي هاي ما هي معوقاتها محاهر تاجن وعقبتك وهر تاجن أخوة داس ساسو قيمة بدن لأنه حقيقي هرتا انت أنا كجوابين وحاد وقاتين دينت إسلامك وحي كل سنتي هي الدولة دي دبا الأخوة الإسلامية أرنت الشيخ شرحها من أولها إلى آخرها سأقول سنتي لبار رمضان مثال هو سقاضية مثال كواد وحواية أخوة الإيمانية وحلو بدل إسلامك وحو بدلي جميع الأمراض الاجتماعية والعقدية والسياسية والفكرية والخلقية أو جرتي قبل الإسلام أي أنت لصح كالنسيب كالنسارة كدع ذوات قانين عنه يستأسف يعني سمارة قانين عبد الله قرشي الله نحن استهام أنت أتري لحد ما يدي مركا أنت للسيبي قنبلة تتاسع وحال لقول ركب شاتك إسلامك أي اللوجلي ومضي النبي صلى الله عليه وسلم مركا ماشي قبيالة وحوقلية أخوة الإيمانية ماشي استعلاء يكبر كإسلوينك وحوك بدلي قبيالة الاسكو قبيلكو كوينة واسكلويناي وكحوك بديه ولا سعناي ولا سحقراي وذوقتين حتى صحابة السلام قاركود وولبا رجع وجوريه كمدها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مركو حنا حوقها سود بناي ولا حد له قرصه وكعاي مركز الله يا ابن السوداء منكي وشقيناي مركز مركي وأنا أركو آدابت إسلامك يا أخلاق الإسلامك وحسوسته أيوة لها مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ليل جاهلية وحلا تعب يذكر لك دقايق ولك قدم بيانا ليل ولا حكوا جرا مركز وانت يسدي بروك دانك دغوي هلك يجا استاغو يعني الى اخره وحديث وقرنيسين مركز ولا علاجنا علاج حقيقي ولا دقايق غسيل ايا لو سميناي حق مسكحده حق اخلاقده هي حق نولشبا مثال لبادو هدان قادنو النبي صلى الله عليه وسلم مركو مدينه مكه كسو هاجري ومدينه سو هاجري أول استراتيجية أوقات محي هذه أن آخى بين المهاجرين والأنصار مهاجرين الأنصار وحي كدغين مركز دولة الإسلام كنوات كيدي أما أساس كيدي بيس كيدي كدغين وأن لو دقاق كريم با مركز هدان أيها هرت الله ولا علين وأن قلب قود اللي اسكو قطبينون اللي اسكو حرين واتجاه مديسن لو سمينين دولة ما بدقاق يسوا مؤاخاة كاس محل بدل مركز الصراع القبلي والمناطقي الذي كان قائما في الجاهلية قبل الإسلام وحكد حي لبدا قلو صراع قبلي قريش أي أهين مهاجرين أنت بدن لمن كان وحي أهين لمن أصل كذا يمن كيمد أو مدينة دقن أو أوس يا خدرته قبيل كلو قاري أهين مركن لمن كان سيجا وحكد حي قريش وحي إسحيست لمن دولة لماذا هيستا أو كعبة هيستا أو آدي سلوين إلا مدينة مركز معلومة لهين النبي قال معنوية صلى الله عليه وسلم قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسكنها مقال عادي يثرب على الهجرة لكن من كان مكة المكرمة وقبل تمارتي الأولين والآخرين والنبي آدم عليه السلام كسودق والنبي إبراهيم أودسه وأنبياءنا يسوي زيارتين وكل كضوافين وملائكة الله كضواف جست قبل البشر أي دقنايين هيستين مركا عربات لنا وأود بضنايين خير مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحو يسبنك جرى القبائل العربية حالنا waxaan ka sheegnay muxaadarada lagu iftaaxay markaska qabaa'il arabi wax isugu bandhigay xad kasta markay isu yimaadeen wareerkeeba ikaxaynaya oo nusra iseenaya oo dacwada ilaahay isoo dhibay inaan guto gacan ugu seenay intaas oo lahay wax kale kama rabin markaas wuxuu waayay qabiil ku dhaca qabaa'ilka qaarkood xisaabay la yimideen nimanka bani aamir oo kale iyo bani xaniifa oo labada qabiil ugu waaweyn bacda quraysh ahay bani aamir ku xigta bani xaniifa ma sahlaneyn لمن رأي الديو أود بدنا هايون دجال بدنا مركز دم الإسلام كا أجي بيه وقتي مسلمة الكذاب يقول هذه سواي غزوة يمامة الوقت بيه مركز نمن كاس لباس قلا مركز يسبن جاي قلا بحساب سياسي ذا اللي يمدين واحد بلاش القديم ما مجران ما فيش قفت واحد لا مجران واحد إذا قدر هدانكو كحينه نن سهلا ميه نن اللي يراه واكتفاءات هاي واحد شيء السنة واحد سهلا معه لكن هدانكو كحينه إيه أتقول يستد إيه غير أدرك أنك أتكانه بريت هذا منو يسوي رجنيسا قال له أدوار دم نيسا ووصايا منه قريسا إن عنه ولا نهي ملكك وحول إن هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء أرنت إلهي بقى إسكاله
meeshuu rabowna dhigaya anugu ballanqaadkaas ma samayn karo xisaabtu waa isbedelaysaa marka arrintu diin waa ka baxaysaa waxay noqonaysaa siraac siyaasiya oo baxtiya waa midda maanta soomaaliya iyo caalamul islaami ka taagan masaalix siyaasiya maadiya noqonaysaa marka nabigu sallallahu alayhi wasallam jawharul islaam si uu ilaaliyo ruuxda islaamka wuxuu yiri arrintaas uma ballan qaadi karo arrintaas arrinta la soo daray ma aha risaalada ilaahay baan gaarsiinayaa ilaahay daraadiis iyo garab siiya islaamka xataa waxa loogu bandhigayaa bil xikma wal ihsan ma lagu qasbi maayo haddii rabaan islaamano haddii kale iyagoo gaala xataa ximaaya siiyaan bani thaqiifa u tagay waa soo raacdayeen nimanka daa'if degan waa ogtiin si xun waliba shar raday soo radiyeen marka sidaas wuxuu raadina makwa ku noolaa waayay markii ugu dambeysay xataa qaraabadiisa baa jiwaar sii weysay waad ogaadeen inuu ku soo degay maartay ninka ahay mudcim jabeer marka wuxuu waayay wuxuu raadinaa marka meel uu dacwada bal horta ka nashriyo dacwada waxay u baahan tahay mundalaqa u baahan tahay meel ay ka dhaqaaqdo marka isagoo sidaas ahay ayaa reer madiina niman la yiraahdo oo soo xajiyo la kulmay xajki waa la wada joogaa waliba mar walba xajka intuu dadka la kulmaayo waxaa la jira adeerkiisa Cabbaas oo gaal ah laakiin qaraabanimo ku difaacay iyo waalidnimo iyo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu oo saaxiibkiisa koobaad ah oo wadaygiisa khaaska ah khaliilkiisa ah oo ayaa la jooga لو كنت متخذا خليلا اتخذته ابو بكر ويل لكن الهي با خلد الهي با خليل امرك لكن دان قفك دغلا اسغا وداي نقول لهي بو يري وليس كما مفارقن بماله وروحي بو لغرب تاغنا يا علي ابن ابي طالب ويل يرو كريا oo in adeerkiisa wiilkiisa kale tan ah oo asaguna waardiye u ah waardiye khaas u ah in hore ana muhaadara ka dhigaya masjidkii oo sigiska ayaan soo qaaday arintaas waxaan yiri marka in culimada dhalinyarada waardiye ay ilaaliyaan waxa bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam ali waardiye haajir marka sheekh weyn noo ilaaliyaan dhalinyarada ma joogto cadowgiisu sheekh waa badan yahay marka macnaha waxaan ka waday arrin bidca ma ahan mar walba daba taagna jira wuxuu isha la raacay wixii dhiciisa maraya oo nabiga si xun ishu ugu xajiiminay wiil geesiyana waa ahay saas soo wad markuu arrintaas uu sameeyay waa u qaay nimankan reer ansaar ahayo ka yimid madiina oo dhalinyaro ah ayaa la kulmay waxyaabaha aan isha ku dhiftaa doon ku farax waa kamida inaad kulligiin dhalinyaratiin Johannesburg xal saas ay ahayd kabtan loo hubaa waa sidoo kaleeto maxay la beledkan oday qawaaro sida aan oo kaleeta hadda wax kale oday meesha uu jooga inta kale dhalinyaro waaye mar in badal la soo fuulay u baahan tahay joqda in la soo dhawlay u baahan tahay mar in xad laga soo disay u baahan tahay ma awoodi kariba marka jiilka dhalinyarada la soo diray barakaadka kamida barakaadka waxyaabaa idin sahlaya inaad maraakis dhisatiin dhalinyarada kamida odayaasha wax laga fuji kara gacantooda wax badan ay soo qariibeen marka waxa waaye waa ku agnimanayaan walidaalika reer madiina niman dhalinyaro ah Abu Bakr Siddiq oo ahay nasaabatul arab oo arabta aad u yaqiinay ayuu wuxuu qabaa'ilka soo sahnay jira nabiga Abu Bakr kasi oo soo aqoon badan qabaa'il marka soo xageen aadayna asaga la tashana ya rasuul allah bal aniga isu leeyahay qabiil u tagaa nimo la soo sheekaysaa ka qabiil oo khatar rag uga weena ya tiinu leeyahay rag qaar waa yaqaan kuwa san qaan oo hubinaya reer hebelaan nahay kayfa almana'atu fiikum seed wax difaaci kartiin buu leeyahay nin soo dhex galagtiis lama ima kari leeyihiin qabaa'il waaweyn hadii kuwa kale waxay leeyihiin ma reer bani hebelaan xulafa lanahay kuwa san ilaaliya ila qabaa'il ku soo ma ahan qabaa'ilka marka la isku hadlay karo oo dhexdooda laga kulmaysan karin ayuu u tagi jiray markaas wuxuu yiri reer madiina la kulma waxa hogaaminay in la yiraahdo Usayd ibn Samit oo ahay reer Aws ahay Aws iyo Khadrija madiina degana aw Khadrija badneed Awsna waa ku soo xigeen boqolkiiba 70 kala ahaayeen laakiin Awsiintu niman dagaal badan ay ahaayeen Khadrija taas fara badan leh xataa isaas u caburna isaas u ahaayeen niman sahlan ma ahayn marka ninkaas hogaaminay wafdiga labada qabiilo waa weynaad waay oo madiina deganay marka uu bandhigay oo la hadlay si fiican u dhageystay Usayd ibn Samit wuxuu yiri niyahow ya rasuulallah dabcan ma aaminsan oo gaal niyahow nin fiican baa tahay waxa sheegaysan wixii anfacay waay anagu meel leeyahay Yathrib aan degannahay niman yahuud leeyahay dhibay yahuud meeshii deganeed beesha iyaga xoolaha ugu badan dadkii isku diraayeen bir bay ugu hayaan warkaagu warna anfacay waay madiinaan u noqonahay jaanis yar si yiri saxadka damaan noo balana sanadka 10aad waay sanadka 10aad la balama markii uu madiina tagay oo ayaanta inuu tashkiilo ka shaqeeyo يوم بعثها سو دخ غشي دغال لو مدلنا جيرو مدشي بعث لا يراado oo uu seexad iyo ka dhaxeeyay gam meesha lagu dilay odagii qabac looga siiyay ilaa nimanka waaweyn oo soo baxo dhama meeshaas loo fadhiyaa waxa dhalinyaro ka wafdiga dhalinyaro ka wada dhigay kulligood jilib dirtana la soo dhameeyay ragga la soo aaraayo oo wada qatarta ah oo dhan odaashay ah jireen waa soo wada baxeen dhalinyaro kaliya soo yartay dhalinyaro miya loo dhawa karaa soo seefta basax ringu soo seefta ku shaqaalayna odagu laakiin meelaha soo socdaa la helaa qabac laga siinaa ama dagaalada inta la tago leeyahay kulli umri kuma hirin magac darada iska ilaaliya soo dagaalka isu dhiga way oday waayelih oo jilib diira qabac marka odayash waa leedeen wax yara ka hiray meeshii markuu taga oday Usayd laftiisa meesha lagu la tagay يوم بعث خزرج ku soo khatimay reer khazraj dagaalku ugu dambeeyay qabac ka siiyeen waxa soo baxay marka xajkaas oday lama haaye
laakiin warkii waa gaargaarsiiyey ninkaas culimmada siiradu waxay leeyihin waaba soo islaameenba laakiin islaamkiisu calan ma ahayn qaarna waxay leeyihiin odagu sidiisu ku tegay say rabta ha ahaato waxaa soo baxay sanadkii 11aad ragaa soo baxay 6 ah oo dhalinyaro u badan oday lama hayaba saan u sheegay 6dii nabiga arkeen sallallahu alayhi wasallam si qarsoodi oo la kulmeen markuu la kulmeen uu soo dhaweeyay qaarkood way islaameen wuxuu yiri orda naqda sanadka dambana iigu imaada number intaan ka weyn waxa dhan sirriyaal lagu wadaa qarsoodiyaal lagu wadaa sanadkii 12aad waxaa timid 12 xul ah 12kii timid waa bay'a al-ula markay dhacayso waay bay'u la gala nabigu sallallahu alayhi wasallam macallinkoodii dhalinyarada ay Mus'ab ibn Umayr ku daray macallinkii macallin siiyeen quraankan in la baray asuu ku daray wiil dhalinyaro Frida ay waqti Mus'ab saxaabiga qiimo badan sanadkaas si fiican u soo taabay wuxuu ku dagan leeyahay As'ad ibn Zurara oo laga daba hadli karin oo bin Abd al-Ashal وسيد بن حذير iyo سعد بن معاذ ayaa waxay damceen uma heedhawa karaan inay maartay arintan damcay inay la dagaalamaan oo yiraahdeen dhulkii waa la fasaadiyay wiil yar baa yimid ascadna uma dhawa karno waliba sacad waa diray wuxuu yiri ninkan aniga qaraaban meel ka nahay xaga xidda ahayn qaraaban ilmadarna waa ahayn arad useyd adigu u tago yiri ninkan qoorta ka gooyo yiri ama maartay meel naga soo saar inta seeftada weyn qaadat alaabtiisu inta rakabto u tagaaso inta tagay wuxuu yiri waxaad meesha ka wadin maxay tahay seefta bal inta dhulka ku mudatid na dhageyso waxaan wadna haday xun yihiin waa ka qaadaynaa wiil xigmadiisa fiir ninka dhalinyarada haday ku qanciyaan hada waa wasla wadaynaa haday ku qanciyaan ballan waxaan ka qaadaynaa kala tago markuu u sheegay ee aayadii uu dhageystana meesha ku islaamay kadibna saas u socdo waxaan ka wadaa meesha u socdo waxa halkaan markii ay caqaba thani yimideen ee bay'ad galeen 75 oo gaala ah soo xajisay waxa ra'iisul wafdi ah Abdullah ibn Ubay ibn Salul gaalkii weynaayo ra'iisul munaafiqiin ahay 370 waxa waaye may 430 waxa waaye gaalo 70 waa muslim ama 425 gaalo 75 waa muslim 73 waa rag labana waa gabdho horta gabdhaha marar hinday inaan laga tagayn oo markaas ay rag kullu maanin yihiin khayrkana safka hore yihiin ee adigu naaga islaanaha taxaw warax ka mugda aamus aan lahayn mudira waa loo baahan yahay horta ogaada khayr Allah si sheekhu Yusuf wuxuu leeyahay waa ku maqlaayaan tartiibso ay wax khayr afkaaga ka soo baxaan ala kulli xaal ana gabdhaha xaqooda warkooda ana bajeclaan wax ku dheelayna iska safraano marka waxa dhacday laba gabdhooda joogtay oo qiimo badan inaan la'aantood horta waxba la wadi karin gabdhaha oo gabdhuhu ragga ay la jaan qaadayaan khayrka uga horeeyaan oo waxaan gaalada lana nacleedahay oo gabdhuhu xuquuqdooda la diidan yahay islaam xuquuq ma ogol horta waxaan leenahay taban lakum walima taquluna ya ayuha al-kufar waxaan leenahay gaalay waxa sheegaysiin waxa wixiina dhan waxba kama jiraan maxaa yeelay awwal bay'a oo nabiga uu galay sallallahu alayhi wasallam waliba bay'ada koobaad oo bay'atu al-aqaba la yiraahdo al-ula waxa la bay'atu an-nisaa la yiraahdo bay'ada la galay bay'adii gabdhaha la galay oo suuratul mumtahina ilaahay uu ku sheegay oo ahayd maartay nabiga ida jaa'aka al-mu'minatu yubay'inaka ala ayadaas uu la bay'ayba bay'adan labaadna laba gabdhooda fadhida oo wakiil ka ahayd gabdhii muslimkoona waxa cajiib ah habeenkii saqda dhexe ayaa la kulmay waliba siyaasa meelahaas thuluth waxa la yiraahdo bidaayatu thuluth al-awsat ayuu nabiga la kulmay waqtiga habeenkii 13aad ee ahayd hijrada iyo hurdada lagu nagaado waa dadka xajkaada waa yaqaaniin qof walba uu dhacaayo daalan yahay ilaa isbuuc dhan waxa lagu jiray halgana maalmahaasna maalmaha uu sii daran waay birq markii hurdada la yiri oo fiidka horena aan ahayn waa la soo jeedaa waliya waa birigi oo la soo hurdo gooyay oo jirku inta raaxaystay dadka hurdada fudul ay soo kacayaan aan la gaarin mugga lagu dhaqday lagu hurdada lagu samaada ay tahay siyaasa meelahaas alla soo taabtay gaaladii Makka waa laga dhuumanaya khatarta ahayd kuwii Madiina ka yimid oo tirada badneed waa laga dhuumanaya oo la joogay rada la deganay waa la soo qaran joogtay laba iyo hal ugu yimaado nabiga sallallahu alayhi wasallam leedan arkin gabdhiina labadan gabdhood ayaguna joog dhexda inta soo xirteen dhinacooda ka soo xarjafeeyeen asay soo baxeen ayaguna rag waa dhuumanaya ayaguna soo dhunteen horta inay gabdhuhu salaamay fiiri xilligaas iyo mugdigaas iyo cabsidaas dhinacooda ka soo galeen idinku haweenaadkiina iska jooga lama dhihin maxaa yeelay waxay wakiil ka yihiin gabdhihii muslimaadka oo dhan ay wakiil ka yihiin markay meesha fadhiisteen labada gabdhood waxa la dhihi jiray magacooda Nusayba bint Ka'b gabadha koobaad tan labaadna waxa la yiraahdaa Asma bint Amr bin Bani Salama waxa la yiraahdaa waxay dhashay Mu'aad ibn Jabal radiyallahu anhu qaarna waxay leeyihiin mufassiriintu ahlu siyar ma yadadiisa ahayd laakiin labadaas laga baxsana igaarkii ragga ahay a'lamu as-sahaba bil halal wal haram ay faqih as-sahaba ahay hooyadiis waay muga cilmigu inuu Ismaaciil la ka iimaan ogaw waa hooyadiis ama eedadiis marka labadaas gabdhood iyo 73 ragga ah bay'adaas nabiga la galeen sallallahu alayhi wasallam markay Madiina ku noqdeen nabiga inay soo dhaweeyeen u laabteen marka
muhaajiriinti maka joogta iyo madiina ansaarti joogtay dawladdiisa loo dhisay intaa laga bilaabay meesha u socon halkan waa intaan dhan muqaddamay ahayd waxaa laga bilaabay tarsiikh mabda' al-mu'aakhaa bayna al-muhaajiriin wal ansaar in la walaaleeyay oo mabda'aas la adkeeyey muhaajiriin iyo ansaar ilaa laba laysugu qadbay laysugu xiray guryaha ay wada degaan raashinka qaybsadaan wax walba ay qaybsadaan xataa ay dhaxaltooy ay gaartay oo mar damba aayatul ahzaab ilaahay ku xarimi doonaa oo ka celi doonaa wala nasikhi doonaa walul ihraam bacdan awla bacdan fi kitaabillah dhihi doonaa laakiin awal waxa waay wax walba ka dhexeeyay oo xuquuq ah waad ogtihiin abu ayub al-ansari sida uu maaratay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa iyo saxaabada uu kamid ahaa sa'd ibn rabi' iyo qisas badan oo ku dhex jirta kutub siyar oo wada ajaayib leh ogtihiin waxaa lagu soo dejiyay abu ayub al-ansari sa'd ibn rabi' عنده waxaa ku soo degay abdurrahman ibn auf radiyallahu anhuma sa'd marka wuxuu yiri ya akhi fi al-islam xoolahan aan leeyahayna qaybtaada nuska ka qaado gabdhahan qurquruxda badan leh aan qabana midii ishaad waxa uga qabanayso ku cajibisa qabla fard al-hijab oo ayaa hijab kullu ma soo dejino bilaab ay hado gabdhii xooga waxba looga jeejeedayo midda islaada waa ku qancinaysa lafteeda waa ku furaha uu yiri cudaday tirsanaysa kadibna Allah ku barakeeyo Abdurrahman ibn Auf wuxuu yiri akhi al-aziz jazakallahu khayr fi amwalika wa fi nisa'ika maalkaaga iyo gabdhahaaga iyo xaaskaaga Allah ku barakeeyo dullani ala suuq wiri fa inna qawmun tujar suuqa uu tusawir anagu niman ganacsiga qaananahay maalna ana tacbaayo yiri gabdhana ana guursanayo kuwagan Allah ku barakeeyo saasi isku xiraayeen marka mabda'aas marka mu'aakhaadka been muhaajiriin wal ansaar muxuu dhalay annaga Soomaaliya hadana muxuu naga maqan yahay meeshay xaajadan iska qabalaadahay wadankeena waa aragteen tu wadhihi laaya waladi jilaaya maxaa dadkuna muslimiin masaajidka ku wacdirinayaan asaada meel ka gashay arkiin koobana diir raba laga qaadanay idan waa isku dhaxwada hawsha xagga waa ka socotaa marka maxay u degi laadahay waxay u degi laadahay mabaadi'daas iyo khayrkaas nuuraaniga oo ilaahay cirka ka soo dejiyay ayaanba nagu soconba ninka raba ninka inuu dilo hadduu u yimaado assalaamu calaykum uu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay salaanta la isku badbaadiyo salaantii abla iska bilaabay idaa la isku bilaabaaba salaanta calaykum assalaam qalbiga ku qoyahay waxa salaantuna waa mid wax ka dambeeyaan alaab kale ka dambaysa ma raba inaan galo tafaasiisheeda Soomaali waa ogeedeen dad Soomaali oo walaalo oo muslima hirtiga cad idoon xataa geel lagu soo gaman ayan la dagaalamay oo magac dawladda loo diray lagu soo gambadaya ummadii la qaxshay asal la bil qeysta asaa wuxuu la qaatay asaa meel raad iyo raxan ay dhigeen alla kala haaday asaa markii dadkii lagu dambaabay oo walaalaha ayaa hadana kuwii ma joogay isu soo jeesteen illa gacantu haday wax barato dulma haday barato joog ma kartay mogta huf iyagana hadana qolo waa sii duxdaa baashu ila jufajufo ila tula ay tagtay لماذا لانه مبدا اسلامي هو شيخ شرحه كدسن يا ايها الناس اول خطبه النبي جدي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مارت او شاغي سلام او مدينه جدي او يري وجيسا مك اخري انه سنبي شيغين محو هاي ايها الناس افشوا السلام محل لو بلا افشوا السلام والسلام تفديه سلام تفديه محل لو بلاابay meel aan la isku nabad gelahay nolol ma taalo oo cibaada ma taalo oo aqeeda ma taalo oo khayr ma yaalo oo tacliim ma taalo horta koo nolosha waxa asaas u ah peace أما سلام أما أمني أي أساسها هذا كاسر كل شيء ولا وينيا ولذلك إلهي حتى الدين تيسر لما كنت يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة نور السلم إسلام كذا ما لقوا ذا كل جيل وذا قلا أما إسلام كذا قلا في ذا سأل هذا هذا تعلق هذا هذا كنت تعلق مارتي فاعلك وهو جماعها يا دي جار مجرور كنت تعلق ما جربت هذا أما إسلام كذا قلا أما إسلام كذا وذا قلا قار كجلني أنا قد قار أنا وجرنا إسلام قار برك إسلام مغلي صادق wax badanna islaamkan ka wadanaa tawxiidka waska wadanaa haddaan dhaarana yahuud raana haddaan saas ku yeelno yahuudigu agtiisa khatar u ka yahay gaalata dadka ku dilaa laakiin dhinaca dhaqanka iyo alwalaa walbaraa iyo aliimaan iyo akhlaaq alislaam iyo alkhul iimaaniya kulli xaqan iska dhigna nin walba jaahiliyaadkiisi laga dhisay saxaabadaas mugii soo islaamayeen meeshii joogeen meelamidan joogna laakiin qamiis islaamaan iska wadanaa taqliidiya ma shaqeeyayso marka waxaan uga baxayaa inaan ku dheeraado mar rabay muxaadarada sheekha noo jeediyay waxaan uga baxayaa tacliiqa maanta waxaan ku badbaadi karnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa khayrka ay xambaarsan tahay aan fi dunya qabla al-aakhira aan ku heli karnaa aakhirana aan hubnaa inaan helayno haddaan si dhab ugu sheegno walaalayaalow inaan manhajka nabiga sala allahu calayhi wasalam aan qaadano dowladdan dhisanaynana asaga aan ku dul dhisno wuxuu ku dhisa aan ku dhisno oo ah dadka in la walaaleeyo fawaariqda qabaliga meel la iska dhigo al-i'tizaaz wal-tafakhur bil-qaba'il meel la iska dhigo reerbal annagu hadana saasan meel wax ku tirimayso waxay soo kordhinayaan damaar iyo fasaad aan ma jiro qabiilkan aakhira lagu weydiima oo adduun lagu hatta reerka adigu aad ka dhalatay
ilma jaamac xasanaan lagu weydiinayna iyo ilma maaragtay jaamac waxba laga weydiin maayo ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaama yufsalu baynakum ama yafsilu baynakum waa idinka la geynayaaba ilmaadeeraan nahay iyo isku jifaan nahay iyo ilmaadeer xataa ilmahaagaan iyo xaaskaagaan arkayn yowma yafir almaru min akhiihi wa ummihi wa abihi xataa hooyadii aabiyaad ka cararaysa haddaan camal saalix aadan ku midaysanayna marka waxa kaliya oo baaqi noqonaya haddii sheekhu noo sheegay waay alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin waana midaad maanta ku fadhidiin halkaan markaskan waxaad ku aasaasteen masaajidkan quruxdaan ma qabeen haddii la dhehi lahaa waa masaajidkii bani fulaan reerka caawa ugu badan militoria hadday intay isu tagaan masaajid ay dhisaan nuur ilaahay u yeeli waa masaajidkaas laakiin marka yaa ay ukhuwa iimaaniya lagu dhiso oo walaalnimo islaama lagu dhiso oo nin kastoo muslima loo furo wuxuu noqonayaa masaajidkii awalu yani masjidun usisa cala taqwa oo kale ilahay qur-aankiisa ku yiri noqonaa masaajid taqwa noqonaa masaajid barakaysan oo noqonaa maxaa yeelay haddii qabiil lagu dhiso hada qabiilkii haddana kooxa noqonayo hoos usii degaayo basashii oo kale waayo ahay maaragtay reer balaa qaatay ahay daa'uud niman samaa la tegay haddii ciddi anigu ciddaydan ku miithaalna meelo kala taaban karo ahay ya reer adeer daawuda qaatay muu jeedaa annaga haddaan talweynaa meesha ka maqannahay xisaabad agteena ka jira waayo kaasaa intana la keenaa markaas beydka ilaahay marka qabiil laguma dhisi karo waa in lagu dhisaa kitaabka ilaahay ukhuwa aliimaaniya hada huwa alasl taa markaan kasoo gudbo waxaan kusoo gabagabaynaa marka soomaaliya muqdisho anigu ayaana waa soo moogaayo 13 bishaana ay ugu dambaysay bisha hadda dhamaadka ah oo 12 milyan soo mooga ama 12 milyan laakiin waxay ka jiraan si kooban idinku sheegaa mawduucan muxaadarada si aan ugu xiro waxaa ka jiray dad laba kooxood ah oo habeen iyo maalin ku hurda si isu dilaayeen kaliya oo Soomaali ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo masaajidka haddii masaajid ku aalahay iyagu isnimad gelinayo ku duka lahay oo laba wiilo labada oo isku xigtaa midna xal ka soo jeedo midna halkan ka soo jeedo nasiib darrada ugu xanuun badan ee Soomaaliya ka jirta waa caalamka xataa adduunyada kale lama qabto suuriyana lama qabto maxaa nusayriyiin iyo shiica iyo balaayo caqiido isku khilaafsan iyo sunna dagaalamayo oo ahlu sunna ah weliba dulmiga ay shiicadu wadaan nasaarana ay hadda ugu garbaynaysa yahuudi nasaaro marka muslimiintu xaq dirar waa jihaad fi sabilillah ka furan ciraaq saasoo kale waay mahaan xaal isku haysta ayaa sheegi kara waa wada sunno waa wada muslim waa wada ahlu diin laakiin imtixaana taagan arrintu marka laba arrimood la isku haystaa horta dadku saddex ay u qaybsamaan qolale labada daraf ka soo kamida waa taqaaniin qolada kale wuxuu yaraa waa taqaaniin ma baahna inaan ku celceliyo ahay murtadiinta nag laga dhigo ragaa qabay gaarta geesiyaasha oo dhalinyarada ah murtadiintan waa in meel laga soo hero madaxweynahooda iyo golahooda baarlamaan iyo ciidamadooda iyo shaqaalahooda iyo haweenka dhulka xaaqa iyo kuwa ku dhex nool iyo waxa canshuurta siiya iyo suuqa bakaar iska wada adigu wixii madaxaas ku jiro dhan waa in meel la saaraa xisaab weyn waay xisaab weyn u taala asugaysa dhinaca kale waxa yaala iyagana nimankii dhalinyarada ahay waa argagixiso waa khawaarid waa haloo soo kaxeysay yahuudiin nasaaro iyo wixii la heli karo gaal iyo muslim hal madow hal cad waa in meel la saaro ilaahan idinku dhaariyay meeshaas xaq soo baxay marka dadkii kale to muslimka ahayo diinta wax ka yaqiino ahlu iimaan ay waxay leeyihiin laa ilaaha illa allah biyo ku shub waa yaaban yihiinba maxaa yeelay muslimiina gaalad garaayo ma joogaan dad isku dimaabaya kaliya jooga marka waxaan leenahay marka haddii sawaadkan acdamka oo muslimiinta iyo suuqyadan iyo dawladdan iska macmalka ah oo adduunyada aqoonsan loo been aqoonsi ma jiro run laakiin la kugu been sheegayo iyo igaartan geesiyaasha oo diinta iyo qeyrada islaamiga meesha ay geystay bilmunaasaba anigu dhalinyarada waxaan qabaa inaan la cadaawaysan inaan aad loo dagaalamin inaan duqda la dhowsiinine la soo dumo oo akhdaa waa leeyihiin waaweyn akhdaadooda si diin ahaan looga dhaadhiciyo taas asal ah islaamka taas asal ku ah maxaa yeelay haddaad tiraahdo waa gaalo halalaayo waa khawaarij waa haddaad tiraahdo yaa laynaya su-aalaha kugu imaanaysa wixii arka halaayaana haddana gaal inuu dilaayo haddana halkan oona fatwoonaysaa gaal hadduu dilo gaal muslim dilaayo laa ilaha illa allahu leh hadduu xataa munxarif yahay oo qaldan yahay gaal oo saliib macatab u xiran yahay inaad banayso xaggee diintakaad ogolanaysaa arrintaas waxay leedahay dareen cusubo weynaa ku jira marka haddana nin isaguna hadduu ku arka aan ku daynano kow kaa siinayo middi saawir u xiran tahay ee inuu kugu qarjajiciyo weliba adigoo maaragtay tawxiidka xataa aan dhegaysanayn asagana ma day kartaa lama day karo isaguna dareen cusub waayo marka daawadu marka maxay tahay daawadu waxaa waaye asal ahaan in loo laabto ilaahay kitaabkiisa inay culummada labada dhinac joogaa ilaahay intay ka baqaan ilaahay intay ka baqaan waana ku celcelinaynaa kuwa soo socda maxadarooyinkan waa ku sheegi doonaa horena waa u sheegay 2 sano ka hor anigu waa sheegay iyadoo weliba ragga qaarkood fiirinayn leeyahay xita wadaadka wuxuu ka wadaa ayaan maxaa yeelay mar walba waa inaad ogaataa insaafka iyo cadaaladda asal ah waxa waaye waxaan qabaa dalkii haddaan idinkaga warramo kow iyo sagaal horta waxa wax dilaa dadka qaarkood suuqa waxay geliyeen shabaabaa dadka eber ka dhigay ayaan been laydin sheegay soomaaliyo dhama isla shabaabka waxa wax dilaa ugu yaryaaba asagu
هل دفعوا قبع كثيرة لكن ذاتك قبيلة لقول لا يوهايا أو معمل قبيلة بينها لقول لا يوهايا أو يهودية النصارى جواسيستودا لا يوهايا أو ولحن لاقانا لا يوهايا بقول والحاتة ذاتك لا يوهايا سواء لاقانا يا محب الشباب هلا يقول لا يدنين شباب كنا يقولوا شيء ما ينودوا هذا كوضان لكن نمرك أوجي يرى عليك رابع إيجا وما نمرك أوجي يربى مركب هذا ماشان ولا سوى ذا شغلتك قالوا لنا هالمدة هلا على سوتك ولا حد يجي من سوتك سومالي ولا شغاليسي شغوينا كسعت كل سجاش كسر لوكال التجوال لوكال مغير قبائل كنوا البعيلة دلا ماشوا جراعي الكدلا مركب حقيقة هدات ربتين مركب إسلامك وحبها هي مبادئ أصل كاهد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الحاملة للمعاني الإسلامية